Markaan yaraa aad ayaan u guuri jirnay, magaalooyin badan ayaan ku soo noolaa. Mararka qaar waxaa la dhihi karaa waddamo kala duwan ayaan ku noolaa. Hal cashar muuqaalka inaan dheeray ma rabi. Hal cashar oo aan ka bartay guurguuritaankaas waxaa waaye nolosha wax ku daahay mala wax walba waa la weyn karaa. Waad dareemi kartaa qofka markuu guuraayo oo ilmo yar uu yahay. Bini'aadamku waxaa ku abuuran horta meel uusan aqoonin wuu ka cabsadaa. Qofka haddii aadan aqoonin xataa kuma degdegaysid xoogaa yar gadaal uga istaagaysaa. Casharkan ka bartay waxaa waaye wax waaraya ma jiro adduunka, wax waliba waa la weyn karaa, and that's okay. Dad noloshaada way ka bixi karaan, saasaan lagu hilmaami karaa. Yacni kumanaan qof waa baranaysaa magaaladan, dad badanaa ka baranaysaa. All of a sudden waa ka tagtay. Mararka qaar dib iskuma maqlaysaan dadkaas laga yaaba. Nolosha in wax walba la weyn karo, naf, maal, in wax walba ay yihiin temporary, waqti dhow ay dhammaan doonaan wax walba. Iyo in dhib kasta uu jiro, dhammaadka ay duwanaan doonto, natiijada ay duwanaan doonto. Tusaale ahaan, magaalo cusub aan imaaday, walwal ay igu jiro, dadkasay noqon doonaan, magaaladaasay kula noqon doontaa, meesha meelaa ka heli doontid ma tahay. Cabsi badan, iskuulka macallimiintiisay noqon doonaan. Haddana markaad la qabsatid wixii weji kale kula yeeranaya. Yani familiarity iyo wax maalin walba arkaysid caadi ay kula noqonayaan moogtaa dhammaadka. Marka dhammaadka wax walba inay isbedeli doonaan, wax walbana inaan la isku haleyn karin oo waqti walba la weyn karo. Inaan ku qanci karo haddaan wax waayo aanan aadkaas ii saameynaynin. Haddii aan dad waayo, haddii aan maal waayo, haddii aan wax walba nolosha aan waayo, aysan aad ii saameynin sababtoo wax walba waa temporary, mar ayay dhammaan doonaan. Muuqaalka halkan aan kusoo koobaya. Haddaa ka heshay like. Assalaamu calaykum.